Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Caasib Media. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay qiso jacayl oo ciwaankeedu yahay nasiibkaygaan ku helay, taa oo taxane inoo ahaan doonto hadduu Rabbi raali ka noqdo. kusoo dhawaada qaybta koowaad ee qisada. balse intaan u gudagelin qisada, waxaa si xushmad leh kaaga codsanaya daawade inaad like saarto muuqaalka. haddii aad channelka cusub tahayna nagu soo biir oo taawo subscribe furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena isla marka aynu soo gelino. Sucaad waa gabar dhalinyaro ah, jaamacad dhigata, badanaa asxaabteeda waxay ugu yeeraan Sucaad Stella sababtoo ah waa gabar xargo badan oo modelada jecel. ardayda jaamacadda gaar ahaan wiilashu aad ayay uga helaan, waana gabar caqli badan, waxbarashadana ku fiican oo aad loo amaano. maalin waxaa yimid jaamacadda wiil Saacid la yiraahdo, isagoo banaanka jaamacadda jooga ayuu markiiba wuxuu arkay Sucaad oo meel buug ku akhrisanaysa. waxaa aad u soo jiitay quruxdeeda, aad ayuuna uga helay. isagoo weli fiirinaya ayay Sucaad ka kacday goobtii ay fadhiday, fasalkeedii ayayna ku noqotay. isaguna waa uu iska tagay oo gurigiisii ayuu aaday. kadib qol ayuu fariistay, wuxuu kolba soo xasuustaa gabartii uu maanta soo arkay, sida ay markiiba maankiisa u qaaday. Sucaad wiilasha xiriir kama yeesho, mana jecla waxaas. inay jaamacadda dhammayso kaliya ayuu go'aankeedu ahaa, kadibna riyadeeda ah modelka ay rumayso. maalin ayaa waxaa la qabtay xaflad ay jaamacaddu lahayd. Saacidna walaalkii ayaa dhigto jaamacadda, balse isagu ma dhigto. wuxuu soo raacay walaalkiis wuxuuna yimid jaamacaddii, isagu kaliya inuu arko gabadhii shalay ayuu rabaa. markuu in yar joogay xafladdii, wuxuu arkay Sucaad oo hablo la taagan, oo siday u labisan tahay iyo sida ay u qurux badan tahay aanan la qiyaasi karin. mar kaliya indhaha kama uusan jeedin. Sucaad marnaba ma aysan arag wiilka intaasi ku maqan eegmadeeda, iyada warba uma hayso. Saacid inuu la hadlo wuu ka cabsanayaa, wuxuu isleeyahay maxaad kala kulmi doontaa. isaga oo meeshii fadhiya ayuu walaalkiisa weydiiyey, waxa uuna ku yidhi inantaasi magaceed. markaa ayuu u sheegay magaceeda, waxa uuna u raaciyey, laakiin maxaad ii weydiisay? markaas ayuu ku yidhi waxba, kaliya qof ayay ila ekaatay, isaga oo isa leh yaan lagu dareemin in aad ka heshay. xafladdii way soo dhammaatay. markii meesha lagu kala tagay ee uu guriga yimid, ayuu fikir iyo sidee wax ugu sheegtaa isweydiiyey. Saacid maalinba maalinta xigta jaceylka ayaa kusii kordhaya, wuxuuna gaaray heer uu maalin walba u tago jaamacadda agteeda si markay Sucaad soo baxayso u arko, indhahana ugu nuursado quruxdeeda iyo isteelkeeda. Saacid hooyadii iyo reerkii oo dhan ayaa la yaaban maalmahani waxa jira, waayo Saacid guriga kama baxo inta badan, kaliya waxa uu baxaa marka uu Sucaado soo fiirinayo. aamusnaan ayaa ka soo hartay iyo cuntadii oo uu ka go'ay. waxaa la weydiiyey maxaa kugu dhacay, miyaad xanuunsanaysaa, sidee wax u jiraan? markaasi ayuu ku yidhi maya, waxba ma jiraan. Saacid wuxuu noqday qof dusha ka daawada xurul-cayntii uu jeclaa. maalin buu saaxiibkiisa la wadaagay sidee wax u jiraan iyo jaceylka helay, isagoo ka faaloonaya Sucaad. saaxiibkii ayaa ku yidhi maad u sheegatid jaceylka aad u qabto gabadhaani inta aan lagaaga hormarin. Saacid aad ayuu ugu fikiray qaabkii uu Sucaado ugu sheegan lahaa jaceylka keliga ku noqday. Sucaad ayaa isbuuc jaamacadda ka maqneed, Saacidna waa uu ka waayay agagaarka jaamacadda ee uu ka eegan jiray. Saacid markuu waayay Sucaad aad ayuu u walwalay, waxa uuna bilaabay in uu isla hadlo. talow maxaa ku dhacay, maxaa jira, halkee ka ogaataa xaaladdeeda? ayuu isweydiiyey, isagoo garan la waxa uu sameeyo. maalin walba jaamacadda agteed ayuu tagaa, bal inuu mar un soo arko. isbuuc kadib Sucaad ayaa timid jaamacadda. Saacid xilligii laga soo bixi jiray jaamacadda ayuu yimid, mise wuxuu arkay geenyadii uu jeclaa. intaas ayaa ku filan oo farxad ayuu dareemay, maadaama uu arkay jaceylkiisa. ileen Sucaad way aragtaa wiilkani maalin walba halkaas soo taagan, balse iskuma mashquuliso. haddana ayaamo kadib ayay aragtay isaga oo sidii meesha u taagan. waxay isweydiisay talow wiilkani maxaa maalin walba meeshani dhigay, isla markaana uu ku soo fiirinayaa mar kasta. ciyaal suuq ayay moodaysaa oo maba oga in ay iyadu tahay indha nuursigiisa. maalmo kadib ayuu go'aan ku gaaray Saacid inuu u sheegto jaceylka uu qabo Sucaad, wax kastaba ha kala kulmee. maalintii dambe ayuu jaamacadda agteeda istaagay si uu ula hadlo Sucaad, isaga oo guul iyo guuldarro mid un sugaya. markaas ayay ardaydii soo baxeen. Sucaad markay albaabka ka soo baxday ayuu u yeeray, wayna u tagtay. markaasi ayuu ku yidhi waxaan rabaa inaan arrin kala hadlo ee nambarkaaga isii, waayo halkani munaasib ma ahan. kolkaas ayay ku tiri marka hore aqoon iskuma lehine maxaan ka wada hadalnaa. markaas ayuu ku yidhi aniga aqoon waan kuu leeyahay, ee isii waqti aan isku kaa sheego.
markaas ayay ku tiri iga raali noqo cid aan aqoonin ma siiyo nambarkayga wayna ka tagtay. halkaa waxaa inoogu eg qaybtii koowaad ee qisadii jecel ee la magac baxday nasiibkayga ayaan ku helay. daawade haddii aad qisadani ka heshay aadna jeclaan lahayd in aan soo geliyo sida ugu dhaqsiyaha badan qeybaha xiga, fadlan muuqaalkani like saar. haddii aad channelka cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe taabo, furo gambaleelka si aad u hesho qeybaha xiga ee qisadani. tan intaan kulmayna qaybta xigta, nabadgelyo.